taageerayaal tiro badan ayaa habeennimadii xalay ahaa xisbiga mucaaradka ee wadani munaasabad soo dhaweyna ugu sameeyay hotel New Burco ee magaalada Burco. Taageerayaashaas oo ahaa dhalinyaro ka soo jeeda beesha bariga Burco ayaa ku bahoobay forum lagu magacaabo Mahiigaan, waxaana munaasabadii ku biiritaanka taageerayaashaasi goobjoog ka ahaa musharaxa jagada madaxtinimo ee xisbiga wadani, hogaamiyaha xisbiga Xirsi Cali Xaaji Xasan, iyo waliba madaxa warbaahinta xisbiga iyo mas'uuliyiinta heer gobol iyo heer degmo, cuqaal iyo waxgarad. ugu horeyntiiba waxaa munaasabadaasi ka hadlay qaar ka mid ah xubnaha Mahiigaan ee ku soo biiray xisbiga wadani iyagoo sababeeyay waxa ay u yimaadeen xisbigani. waxaan kaloo aan cadeynayaa oo bayaaminayaa marka la leeyahay waa beelweynta beesha bariga ma aha inay caawa ku soo biirtay, waxay ku soo biireen marka waarkay aqoon-yahan karti daacad mas'uuliyad ku dheehan tahay oo xisbiga uu garawsaday inuu ku soo biiro uu ku cadaysto halkiisa siyaasadeed Xirsi Cali Xaaji Xasan ayaa ku soo biireen caawana waxaa loo qabanayaa xalfad uu goobjoog u yahay madaxweynaha iyo gudoomiyuhuba. beesha bariga Burco waxaanu si buuxda ugu biirnay xisbiga wadani sababtoo ah Burco waxay u baahan tahay qof wuxuu qabta, qof midnimadeeda ka shaqeeya, qof dhalinyaradeeda isu keena. maanta sportskii oo aynu ognahay ka qudhe qabyaaladda ka fayaweynu ahaa maanta qabyaaladuna isaga inoogu daranba. waxaanu doonaynaa inaanu dhalinyarada Burco midayno oo dhalinyarada Burco mid ahaato oo taageerno ciddii Burco wax u qabanaysa. waxaanu isla garannay oo qorfaynay oo aanu muddo ka baaraandegayni markaanu eegnay xisbiyada inuu xisbiga wadani yahay xisbiga qudhe ee Burco wax u tari kara, dhalinyaradiisa midayn kara, horumarin kara, shaqo abuur samayn kara, taariibtay naga ilaalin kara. gudoomiyaha xisbiga wadani ee gobolka iyo gudoomiyaasha garabada dhalinyarada iyo haweenka ayaa iyaguna munaasabadaasi hadallo kooban ka soo jeediyay iyagoo soo dhaweeyay taageerayaashani. laga gartaa inaa Mahiigaan tihiin waxaan leeyahay soo dhawaada gobolkii Togdheera caawa waxay tahay guul uu gaadhay xisbiga wadani guulihiisii soo marba mar ka dambaysa hore u sii soconaya. musharaxa jagada madaxtinimo Cabdiraxmaan Cabdilaahi Cirro, hogaamiyaha xisbiga mucaaradka Xirsi Cali Xaaji Xasan, iyo waliba xiriiriyaha warbaahinta ee xisbigani Muniir Axmed Cigaal oo hadalka iska daba qaatay ayaa dhalinyaradan ku soo dhaweeyay xisbigooda iyagoo oo sheegay inaan xisbiga wadani la kala lahayn. ururka dhalinyarada ee Mahiigaan waa la sharaxay waxaan qabaa waa roobka ugu imanayay marka waxay la tahay isbeddelka ugu weyn ee xisbiga wadana waxaan rajaynayaa in Mahiigaan keeno haddii ay ka dhigo. dhalinyarada Mahiigaan ee soo agaasimay kulankan soo agaasimay gudoomiyaha halka ka hadlayay Ismaaciil ama Ciisto aad baan idin salaamayaa idin hambalyeynaya. waxaa Soomaalidu ku maamaadaa guriga samaya lama dego mid walba magaciisa lagu dagaa. dee Mahiigaan waa Mahiigaan. Burco waxa maanta ka guuxaya sidii intii halkan ay ka hadashay ay sheegtay heemaalka qof koofiyad sita inuu amaanayno ixtiraam badan odayaasheena oo hayna inta la iskaga xaadiro arrin qabyaaladeed lagu sawiro dhalinyarada wajiyadooda nuuraysa jaamacadaha ka baxay halka fadhiya runtii masiirkooda oday sheeganaya iyaga aan waxba ka weydiin imise sano ayay sugayaan ama sugi karayaan in dadkoodu kala qoqobnaado. Maxamed Jookar, telefishinka caalamiga Ariel TV, Burco.